wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka diinta iyo awqaafta marwaadna aadan oo ah marwo qaran agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka hay-adaha dhammaan kasoo qaybgalayaasha ardayda iskuulka neersinka waxaan ku salaamayay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaan kolley anigu hadal badan odhan maayo waqtiguu naga dhacay waxaan doonaya inaan yaraa iftiimiyo inay xafladani ka dhacayso gobollada Somaliland oo dhan intooda badan sida Sool iyo Sanaag iyo Togdheer iyo Awdal kuwaana ka dhacayna waxa loo sameeyay waxa loo diray material oo waxa laga taagay billboard si ugu baraarugsanaadaan halkudhiga sanadka iyo soo ogaadaan faa'iidada ay leedahay naasnuujintu waxa kaloo aan doonayaa inaan halkan ka iftiimiyo sahankii ugu dambeeyay ee la sameeyay ee laga sameeyay wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasaaradda caafimaadka ay sameeyeen heerka ay maraysay naasnuujintu saacadda ugu horeysa waxa u dhigta naasnuujinta baraxa tiran Somaliland boqolkiiba naasnuujinta saacadda ugu horeysa waxa u dhigta boqolkiiba 60 halka ay naasnuujinta baraxa tiran ay u dhigto siiso boqolkiiba 30 isla markaana waxa kaloo la sameeyaa complementary feeding oo ababkii ah waxa sameeya Somaliland boqolkiiba 3 marka taas u baahan in la iftiimiyo hawlo badan waynu qabanay ka wasaarad ahaan laakiin haddana waxa loo baahan yahay inay hawlaha la sii bilaabo maadaama heerka nafaqada ama naasnuujinta waddankeenu halkaa marayso waxa kaloo aan doonayaa inaan iyadna aan yara iftiimiyo halkudhiga sanadka oo ah ilaalinta naasnuujintu waa mas'uuliyadda wada leeyahay iyo waxyaabaha kale xuska toddobaadka naasnuujinta oo iyaduna ah ujeedooyinka sanadka in la wacyigeliyo dadweynaha waxtarka ay leedahay naasnuujintu isla markaana qodobka labaadna wuxuu noqonayaa in dhidibada loo taago oo weliba loo adkeeyo oo la taageero naasnuujinta maadaama muhiim u leedahay hooyada iyo ilmaha iyo qaranka iyo qoyskaba waxa kaloo iyadna aan doonay inaan iftiimiyo in laga qayb qaato shakhsiyaadka iyo hay-aduhuba horumarka naasnuujinta waxa kaloo iyadna uu noqonayaa qodobka afraad in la xoojiyo hawlaha lagu ilaaliyo naasnuujinta habboon si wasaaradda caafimaadka u horumariso kale aanu inahaas ma kusoo koobi lahaa mudane wasiirka caafimaadka mudane wasiirka diinta iyo awqaafta mudane agaasimaha guud ee caafimaadka marti sharafta kale halkay nala joogta our colleagues from UNICEF and WHO and others ardayda maasha Allah quruxda badan halkaas soo fadhida dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mowduucan maanta aynu isugu nimid waa mowduuc asaaska bini aadamka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmaha yar uu uurka hooyadii ku beeray wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay wixii horta bartaa yare dhiigga unugaa yar ee hooyadii ku beermay hooyada iyo aabbaha baadkaa ka beermay in jirhkaa hooyada uu ilmahaa soo koriyo intaa uu uurka ku jiro oo keliya maaha waxa ilaahay ugu talagalay inuu ilmahaasi soo koro soo weynaado dhaqdhaqaaqo wadnihiisa garaaciisa la maqlo xubno yeesho weynaado sadkiisa dhammaysto soo dhasho markuu wixii ilmihii yaraa soo dhasho ilmaha bini aadamku ma aha mid keligii noolaan kara wuxuu u baahdaa hooyo soo quudisa ilaalisa xanaanaysa soo korisa muddo soo korisa ilaahay subxaanahu wa tacaala intii uurka hooyadii uu ku jiray xididadii hooyadii makaanka hooyadii wixii nafaqa hooyada jirkeeda ku jiray hadday noqoto macdano hadday noqoto nafaqo soo korinaya jirkii baa sida markuuse ilmuhu soo dhaco soo dhasho
وإن هوية أما والدك قرطان المهن سيدي لو سو كوري لها لبدا الناس كهويدي waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo riday wax la yiraahdo dambarka aad moodo subag u eegyahay yara adag ibta hooyadii ka soo dhiiqa ilaahay uu badin kari lahaa oo litir mugii buu ku soo ridi lahaa naaska hooyadii ugu soo ridi lahaa laakiin se dhibcaha yar dambarka ayaa ilaahay ugu tala galay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu tala galay dhibicdii dambara inay u dhiganto 10 dhibcood oo caan ah marka ibta hooyadii dambarka yare isku soo taaga marka ibta naaska la tuujiyo ee ilmuhu leefo waxay u dhigantaa 10 dhibcood oo caan ah isagoo cabay ma aha tirada ama cadadka caanaha uu cabay ee waa waxyaabaha la socda dambarkaas ee quudinaya ilmaha ee sii banaynaya xubnihiisa dheefshiidka ah ee furaya bilaabaya sidii uu caanaha markay ibtan dambarkan uu isku rogo caano isugu rogo sidii jirku uga faa'iideysan kari lahaa ayaa dambarkaas sii diyaarinaya waa cilmi ilaahay ku tala galay looguma tala gelin in la siiyo subag looguma tala gelin in la siiyo malab looguma tala gelin in masaasar caan loogu shubo ibtaa yar ee naaska hooyadii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisa ilmaha yar wixii quudin lahaa ugu soo dhiibay dambarkaas wuu isrogaa wuu isbedelaa oo si khiyaasan oo jirka bini aadamka ilaahay ugu tala galay ayaa dambarkaasi isu bedelaa uu sii khafiifaa uu sii bataa naasku wuu dararaa naasku wuu buuxsamaa culays bay hooyo dareentaa waa qanjidhadii ilaahay ugu tala galay naaska ayaa shaqadoodii bilaaba oo ku bilaaba leefiddaa ilmuhu leefay ibtaa uun ilmuhu jiiday markuu soo dhashay ayaa naaskii dareemayaa in baahi looga qabo inuu naasku shaqeeyo uu caano keeno oo wax nool oo wax jaqaya ay soo dhasheen oo ay jiideen waxay ku samaynaysaa stimulation bay ku samayn naaskii ayaa qanjidhadiiba ayaa istaarmaya oo bilaabmaya markaasay u bilaabmayaan si u khiyaasan koritaanka iyo baahida ilmaha isugu dheelitiran waxa markaa isweydiin leh iyadoo hooyadu u soo badheedhay walaci aad ogeyd madax wareerkii aad ogeyd culayskii aad ogeyd dhiig karkii mantagii caga bararkii weji bararkii kaatunadii ka yaraaday culayskii iyo dhibaatadii 9-10 bilood ay uurka lahayd ay ugu badheedhay in ilaahay hadhowto ilmo caafimaad leh ku siiyo inay haddana ilmihii ilaahay ka baryaysay haddana ka hor joogsato wixii ilmahan ilaahay u tala galay inay la qabtaan oo ku soo koriyaan inay ka door bido inay masaajid soo iibiso oo caano laga sameeyo boore oo loogu tala galay weylo in bini aadam loogu tala galin ay biyo ugu qooshto oo ay ilmaheedii yaraa wixii ilmo weyl loogu tala galay ay ilmaheedii u diido wixii soo korin lahaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ibteeda ugu soo riday marka wacyigelin xoog leh hooyadu ilmahan kalgacayl bay u haysaa waxay isleedahay ibtan yar waxaan waa dee wali caanaba ma lihiye oo de miyaan caano u hayaa wuu gaajoonaya wuu baktiyayaa ilaahay ugu soo dhiibay wixii nafaqayn lahaa waxay isleedahay malaha masaasadan iyo qasacadan caanaha ah ee ilmahan buuran ee cas ee maxaan ku raayay kobacsan ku sawiran yahay malaha caanahan ayaa ilmahaaga u dhaama waxaan de yar ee ibtaada uun ka soo baxayo malaha kuma fille marka ilmaha waxyeel isma laha
waxaanay war ka haynin ama aynaan ka dhaadhicinin hooyada oo aynu hawsheenni inagu aynu ka soo bixi weyne inaynu wacyigelin ku filan aynu hooyada siino waxaynu maxaan ku dhahay tusaale kama dhigno ilmaha naaska hooyadii nuuga quruxdiisa kuma sawirro meella ma tilmaano uguma markhaati furno naaskan qiimaha uu leeyahay ee waxaynu qasacdo ku dhajinaa gidaarada qasaco aynu ku iibgeynayno dee qof bayac mushtari inuu wixii uu soo waariday wixii uu keenay wuxuu ku suuq ugu samaysto markaa wacyigelin xoog leh ayaa halkaa ka maqan maaha markaa qaar haddii la yidhaha maxaad ilmaha naaska u siin weyne dee waxaanu siin waaye dee maba haleelayo caruurteenna inta badan waxaa soo koriya ilmo yaroo 9 jir ama 10 jira hooyadii way ka mashquulaysaa way ka tegaysaa tii yaraydee ka weyneed borsana in walaalkiina xalow markuu soo tooso masaasada afka u geli inankiina yar markuu soo tooso caanaha u qoosh caanaha ma nadiif baa meel nadiif ma lagu hayaa khiyaas ku habboon ma la siinayaa imise duqsi baa ku dhacay inanta yaree 9 jirkii ma siin doontaa si nidaam lama u siin doontaa ilaahay baa og masaasadaa yar ee inanta yaree 9 jirku siin doonto ayaa ilmihii 9 biloodan soo siday ilmihii aan soo fooshay ilmihii aan soo dhalay ilmihii laygu qalay ilmihii dhibaatadan la soo maray ayaa haddana kaga tegayaa inan yaroo 9 jira markaa wacyigelin xoog leh oo tusaysa hooyooyinka qiimaha dambarkeeda yar u leeyahay naasnuujintu ilmaha nun dano ma aha hooyaday dan u tahay waad ogtihiin marka aad ka dhalisaan haddii makaanku uu isxiri waayo oo uu dhiig bax keeno naaska ku qabaa la yidhaa naaska markuu ilmahaasu jaqo dumarkooda alla markuu jaqo alla isiida nabar bay qabteen nabarkaa qabtay waa makaankii hoos tuujinaya oo dhiiggii iska joojinaya waxay ku tusaysaa shaqadii inay shaqadeedii qabatay dareenkaa hooyo dareentay ayay ku tusaysaa in naasnuujintii hawsheedii qabatay makaankii baa ku tuujismaya wixii dhaacana ku jiray baa ka soo tuujismaya wixii xinjiray ku jiray baa ka soo dhacaya haddii xuubku hadhay wixii baa ka soo dhacaya waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ilmahan wuxuu helayaa difaac wixii difaacee jirkeedu ilmaha hooyadii uu soo yeeshay xanuuno difaacii jirkiisa u soo yeeshay oo dhan ayuu ilmihii yaraa iga jaqaya oo isagoo difaac u noqonaya wuxuu dan u yahay naasnuujintu waxay dan u tahay in ilaahay kala xadido inta ilmaha yar soo korayo 2 sanadood ee ilaahay soo kornay ilmaha sida quraankeenuba uu u sheegay intuu ilmahaas soo korayo ee naaska uu u baahan yahay inaan ilmo kale ka daba iman oo wax kale ilmaha hooyada u calool gelin qanjirkii sameynaya beedka ilmaha beedkii noqon lahaa ilmo ayuu ilaahay ka hakinaya waayo kan yar baa ilmaha ayaa hooyadii u baahday kan yar baa hooyada naaskeedii u baahday kan yar baa hooyada nafaqadeedii u baahday kan yar baa hooyadii xanaanadiisii u baahday marka ilmuhu uu ka weynaado ee uu naaska soo yareeyo uu abubo ilmahan ee wax kale uu qaadan karo uu helo ee naasnuujintu ka yaraato ayaa qanjirkii ama qanjidhadii samayn lahaa ilmo kale ay shaqadoodii bilaabmayaan caruurtii way kala koraysaa way kala laba jir 2 sanadood 3 sanadood baa u kala dhaxaynaya hooyadii way nasanaysaa jirkeedii baa nasanaya xubnaheedii baa soo nasanaya macdantii ilmihii kala baxay baa soo noqonaya waxay noqonaysaa hooyo diyaar u ah markay kan ka saartay ilman dhallaannimadii inay mid kale haddana ay qaado oo jirkeedii soo qaado waa kala dambayntaa waa kala korintaa waa nafaqayntaa mid walba waajibkii uu lahaa helitaankiisii ayay naasnuujintaasu inoo suuro gelinaysa marka yar iyo weyn hooyo iyo aabbo ilmahan dhagax hoostii lagama helina aabbaa dhalay aabbo hala soo ordin masaasad
hala soo ordin qascad caana ah hala soo ordin wax ilmaha lagu quudiyo hooyadii baa ilaahay ku soo dhiibay ee caanahan hooyada sii nafaqadan hooyada sii daryeelkan hooyada sii ilmahan ay ku dhashay la soo kori nafaqadan aad siinaysaa oon xoolaad sii nafaqada hooyada siinaysa ha u soo maraan warshadeeda naasaha ha u soo maraano ilmahaaga yar ha u sii gudbaane laakiinse basaasad iyo caanaboodhe iyo qof shaqaalaad u qabato ilmaha kuwa haya iyo iska ilow cid u dhaanta ilmaha hooyadii cid u dhaanta male kalgacaylkaa uu hooyadii ursanayo dugsigaa hooyadii ursanayo ayaa ka mida koritaanka ilmaha marka anigoo degdegsan oo aan rabo inaan xiisadeeda siiyo naasnuujinta waxaan idinka cudur daaranaya inaan baxsanayo laakiin dardaarankan kaga tegayaa waxa weeye ilmahaas waa qaali waxaanuu qiimo ku yeelanayaa daryeelka aynu siino ee uu ka helo waalidka dhalay hooyada iyo aabbaha ilaahay haynala qabto hawshaas way inoo taallaa hooyo way inoo taallaa shaqaalo caafimaad ma kala lihiin kan waa public iyo private markaanu idin soo korinaynaba ma lihin private waxaanu nahay public private partnership ubadkiina aynu soo wada korsano hooyadeeda aynu wada daryeelo aabbaha aynu ku baraarujinno in loo baahan yahay ilmaha waalidka uu yahay uu inala soo koriyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. You'll have to excuse me speaking in English. My Somali is not very good yet. So thank you so much, Honourable Ministers, for this wonderful event. It's a very important event, and bringing together all colleagues, stakeholders, really appreciate. So I'll quickly introduce myself. I'm new to many people. So I'm the new Save the Children area representative, Claire Taylor. So I look forward to working with everyone. So as we all know, it's our shared responsibility to protect, promote, and support breastfeeding. All parents with young children should have access to skilled breastfeeding counselling and support from health facilities and communities. This includes access to maternity leave and workplace support. And as was just discussed, we know breastfeeding significantly improves the health, survival, well-being of infants, children, and mothers. So it's really, really crucial to our work. As Save the Children Somaliland, with the support of the ministry, we're strengthening IYCF program over the past few years. Together, we've set up IYCF breastfeeding corners in all of our health facilities. We've constructed 10 mother-baby areas, and we're currently constructing more. These facilities are so important because they provide space and privacy to promote breastfeeding for mothers. It's very important to recognize the crucial importance breastfeeding has in all of our work for health and nutrition. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Anigoo ah Maxamed Sheekh waxaa sharaf weyn yahay inaan maanta ku hadlo magaca UNICEF. Xafladdan muhiimka ah ee lagaga hadlayo dabaaldegga toddobaadka naasnuujinta oo ah mid caalami ah oo laga xuseeyo adduunka oo dhan. Waana fursad muhiimadeeda mudan. Magaca UNICEF oo ku hadlaya waxa xaqiiqo ah in Sustainable Development Goals oo horumarinta adduunka loogu talagalay wadamada caalamka oo dhan 9 ka mid ah ay naasnuujintu waxtar u leedahay. Waana qodob muhiim ah taasoo markaa ay tahay hawl in la dardargeliyo maadaama 9 ka mid ah 17ka Sustainable Development Goals loo yaqaano ay qayb muhiim ah naasnuujinta ka qaadanayso oo kobcintii carruurta iyo adnay fasiraadii badneed ee bixisay ay muhiimadeeda leedahay oo ay tahay goor walba in la xasuusnaa. Tani waa campaign sidaan horeba u sheegay adduunka oo dhan laga xuseeyo sida Soomaaliland baan uga xuseyna UNICEF
waxay haddaba hay-adaha ka shaqeeya nafaqada iyo wasaaradda caafimaadka ka taageertaa dardargelinta quudinta habboon ee dhallaanka Somaliland khaasatan naasnuujinta iyo quudinta kaleba taasoo xanaanooyinka badalkooda laga hirgeliyo oo loo qoro loona tababaro shaqaale talo fiican oo habboon siin kara hooyooyinka wax raacsan mashaariic kale oo ay ka mid yihiin community based leedaho infant young child feeding taas oo meelaha qaarkood ka socdo sanadkanna ay tahay ama 10 sano u dambeeya 2021 laga bilaabo ilaa 2030 istaraatiijiyada UNICEF waxa uu horeeya 6 istaraatiiji weeyaan 4 ka mid waxay ka hadlayaan prevention ka macnaheedu waxa weeye haddii la helo naasnuujin habboon iyo quudin habboon ilmuhu intuu ka yaryahay 2 sano wuxuu helayaa nafaqo dhammaystiran uma baahanayo in la geeyo xanaano ama hospitaal oo lagaga daweeyo nafaqada haddii preventionku hagaagi waayo macnaheedu waxa weeye daaweyn baa loo baahanaya UNICEF iyo wasaaradda caafimaadka qorshoodu waxa weeye in kor loo qaado ka hortagga nafaqa darrada oo ugu horeyso naasnuujinta iyo quudinta dhallaanka si looga maarmo in ubadka la geeyo isbitaal iyo dhakhtar oo uu ku timaado nafaqa darro oo ay had iyo jeer ka caawiyaan wasaaradda caafimaadka hay'adaha WFP iyo UNICEF waxaan mar kale ku celinayaa in ballanqaadka UNICEF qorshaheeda ay wasaaradda la gashay sanadkan waxa weeyaan qodobadaas waa ugu muhiimsan wana sii wadi doonaa waxaan idinku salaamayaa anoo markii hore ka tegey madaxda sharafta leh wasiirada wasiirka caafimaadka wasiirka diinta iyo awqaafta agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Hargeye marti sharafta kale hay'adaha ardayda nursing schoolka iyo hay'adaha kale ka shaqeeya nafaqada iyo caafimaadka Somaliland aad iyo aad baan mahadsantihiin waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabay inaan welibana si gaara ugu mahadceliyo Marwa Adna Aadan waayo waxyaabaha ay aadka uga hadasha ama ay aadka uga shaqeysa waxa ka mid ah naasnuujinta iyo hooyada iyo dhallaanka run ahaantii waxyaabo badan oo ay rabnay inaan halkan ka sheegno ama aan ka sheego iyada aad u sheegtay oo ka hadashay laakiin waxyaabaha aan rabo ama hal ama laba aan rabo inaan ku daro waxa ka mid ah marka Somaliland eegayo laga hadlayo inta badan waxaad aragteen oo ka hadlaynaa in maternal mortality-gu ay aad u sareyso waxyaabaha aadka inooga caawinaya inaynu hoos u dhigno waxa ka mid ah naasnuujinta marka waxaynu u baahanahay run ahaantii inaynu aad uga shaqeyno naasnuujinta oo aynu caawino hooyada iyo ilmaha yarba ma aha naasnuujintu shaqo aynu oranayno waxa u taala hooyada oo kaliya in fact waa shaqo u taala community-gu soo u dhan yahay naasnuujintu waxay ilmaha yar ka caawinaysaa waxyaabo badan inuu korniinkiisu wacnaado inuu development-kiisa in terms of maskaxda iyo caafimaadkiisa jidh ahaaneedba ay sareyso oo uu koro waxay ka caawinaysaa inuu ilmaha yar noqdo ilmo yar oo inta 5 sano ee ugu horeeya uu korayo u koro sidii loo baahnaa inuu koro oo xaaladiisa nafaqo ay sareyso waayo markaan WFP ka hadlayo waxyaabaha inta badan aanu ka shaqeynaa waa nafaqa darrada waxyaabaha sababana waxa ka mid ah naasnuujinta oo aan la xoojin ama aan la samaynin marka waa waxyaabaha aynu baahanahay run ahaantii inaynu aad uga shaqeyno WFP ahaan inta aanan ka hadlin waxaan rabaa inaan ka hadlo as a community ama bulsho ahaan dhammaanteen waxaynu looga baahan yahay inaynu qabano markaynu ka hadlayno waaxdeena caafimaadka ama shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya waxay u baahan yihiin inay hooyada iyo ilmaha yar caawiyaan si ay hooyada ugu dardargeliyaan naasnuujinta ama ay u tusaan hooyadu markay tahay hooyo cusub sida ilmaheeda yar u naasnuujinayso markaynu ka hadlayno community-geena inta kale ama community members-keena kale waxaynu u baahannahay iyo dadkeena dhalinyartaaba inaynu ahaano qaar la shaqeeya ama la socda hooyada iyo naasnuujinta oo mar walba wacyigelin positive ah inaynu community-geena ku wargelino oo hooyada iyo aabahaba u sheegno waxyaabaha kale ee muhiimka ah aynu rabno inaan qabano marka as a government laga hadlayo ama dawladda
waxa weeyaan inay wixii policies ah iyo wixii guidelines ay naga caawinayaan naasnuujinta inaan kor ugu qaadno in ay naga caawiyaan waxyaabaha waxa soo hoos geli kara waxaynu nidhaahno BMS code-ka ama breast milk substitute-ka aadna way ka hadashay waxay weeyaan waxa aynu qurxinaa inta badan sharaxnaa caanaha daasadaha iyo waxa ilmaha yar u taraya laakiin waqti badan ma gelino caanaha naasku ilmaha yar waxa uu tarayo iyo hooyadaba marka waxaynu u baahannahay run ahaantii inaan aad uga shaqeyno markaan u imaado WFP iyo waxaan qabano haddeer waxa markii la furayay waxa laga hadlay in percentage-ka ay marayso Somaliland marka laga hadlayo exclusive breastfeeding-ka ama laga hadlayo early initiation-ka inaynu aad u hooseyno waxa kale oo taa ka sii daran marka complementary-ga la bilaabo ama ilmaha yar 6 bilood uu dhaafo waxyaabaha marka loo bilaabo cuntada halka aynu marayno which is 3% taasina waxay tahay waxyaabo aynu u baahannahay inaynu ka shaqeyno WFP ahaan mar walba waxaan diyaar lanahay in aan dawladda ka caawino wax kasta oo la xiriira nafaqada iyo naasnuujinta haday tahay waxa kale oo u baahannahay dawlad ahaan oo committed ku nahay in dawladda kala shaqeyno mashruuciyadaas iyo waxa soo dhan hadalku waan badiyay sorry waxaan rabaa oo kaliya inaan ku soo koobo breastfeeding-ku inaanu ahayn one woman job ay tahay everyone's role inaynu ka wada shaqeyno in creating a society where all mothers everywhere feel encouraged, supported and protected to breastfeed. Wad mahadsantiin. Assalaamu calaykum. hay-adaha support gareeyay programkan aad baan u salaamayaa wasaaradda caafimaadka ardayda dhammaan aad baan u salaamayaa I think waa la yiri waan haray looma hadlo kulli waa la soo dhameeyay anigu waxaan ka hadlayaa halkii muxuu ahaayay iskuullada caafimaadka iyo halkan ka taaganahay annagu sidoo ogtiinba waxaan nahay iskuulka caafimaadka directly u hoos yimaada wasaaradda caafimaadka oo aanu ku dhaqanno muxuu ahaayay manhajka tooska ah iyo guide-ka ama tilmaanta ayna siiyaan wasaaradda caafimaadku waxaananu nahay baalashii ay ku duulayeen wasaaradda caafimaadku markaad eegtaan majority-ga dadka MCH-ka ka shaqeeya ama dhakhaatiirta major hospital ka shaqeeya maadaama iskuulkeegu yahay iskuul aad u da'weyn oo ay ka soo baxeen labadii ugu horeyseen 1967kii oo dad badan oo ay maaragtay community u taagan meel muhiima ama ka ciyaara role muhiima aanu soo bixinay ilaa 1967kii ilaa imika ardayda aragtaan MCH-yada waan u badannahay maadaama manhajkeegu uu yahay manhaj saxan oo wasaaradda caafimaadka breastfeeding-ka noogu jira patient education-ka noogu jira akhlaaqiyadka kale noogu jira ardaydeeda waanu ballaarinaa maadaama aan manhajka ku dhaqmayno oo aanu isleenahay standardized nacamti caalamka la kulma waxaana markhaati ka ah imika dadkan halkan fadhiya waa graduate-keygii Fadhiye Maxamuud Ifraax dhammaantood waxa weeyaan waa graduate-keygii waxaan hadalka ku soo koobayaa oo leeyahay annagu iskuul ahaan diyaar ayaan u nahay inaanu wasaaradda barbar qabanno wacyigelinta ka qayb galno waxaanu tagnaa waxyaabo la yiraahdo community outreach oonu ku baxno basas oonu MCH-da tagno oonu ballaarino sida inantaasi sheegtay magaceega ma garanayo iyo adne iyo dadkii ugu horeeyayba annagu kulli waxaan ku daba faylinaa madaxdeeda wasaaradda caafimaadka nacamti madaxa meel la taabto ka sareysaa ma jirto waxa taa noo raacda iyadoo NHBC-gana nasaxdo oo ay noo eegaan qualified-ka oo aanu qof keliya oo qualified-ka inay hablahay qualified yihiin waxaad ku aragtaa waxay u shaqeynayaan well vision-kii wasaaradda caafimaadka meelo kala duwan waa educators aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda wasaaradda caafimaadka diinta iyo waqaafta NHBC-da iyo dhammaan martida sharafta leh waa mahadsantihiin runtii marka ay noqoto naasnuujinta aad iyo aad baan yaan anigu aanu jecelahay taysiskaygii bay ahayd jaamacadda marka mar wal oo aan la qabanayo xafladda waan imaadaayo runtii waan ka qayb galaa aad inaan u baraarujiyana waan jecelahay naasnuujintu runtii muhiimadda ay leedahay adnaa dhammaysay in lagu noqdona maaha oo aad uga hadashay hooyada iyo dhallaanka iyo ilmahaba waxay u leedahay faa'iido qur-aankeennaa tilmaamay sheekhii baa inala jooga aayado badan bay ku soo aroortay dhaqan ahaanna waynu u lahaynoo soomaalideennu dhaqan bay lahaydoo dadka
waxaynu nahay ummad naasnuujinta aad ugu wanaagsanayd marka dhaqankeennii Soomaaliga ahaa la eego intii dambaynu ka boodnay oo aynu barannay masaasad iyo ilmaha caano kale oo sabistiyadoo loogu bedelo naaskii hooyada laakiin dadkeennii hore naaska way aaminsanaayeen oo ubadka way siin jireen waxaan ku dardaarmaynaa oo run ahaantii aynu ku wacyigelinaynaa ummadeenna in naasnuujintu ay badbaadiso nafa badan oo ilmaheenna ah oo sanad walba u geeriyooda xanuunada ugu badan ee ay ubadkeennu u dhintaan waa shubanka iyo oofta shubanka naasnuujintu waxay ka qayb qaadataa inay yarayso ilmuhu inuu shubanka u dhinto number aad u badan bay hoos u dhigtaa marka naasnuujinta in la bilaabo daqiiqada ugu horeysa oo hooyada dan u ah oo ilmaha dan u ah oo dambarkii la sheegayay faa'iidadiisa ayaad noo sheegtay oo ka mid tahay inuu difaac leeyahay inuu subag leeyahay oo si maydhayo inuu hooyada kalgacal ku abuurayo ilmaha inuu yacni dhowr iyo 10 faa'iido oo ilmaha u leeyahay iyo dhowr iyo 10 faa'iido hooyada u leeyahay baa jirta naasnuujintu marka waxaynu ku dardaarmaynaa in kor loo qaado oo hay'adaha ay nala shaqeeyaana iyaguna the priority bay ka dhigteen priority-gaas ay ka muuqato aynu wacyigelinta kor u qaadno oo dawlad ahaan iyo partnerska ay nala shaqeeyaba aynu kor u qaadno wacyigelintii oo halka ilmo caano sac holaan jooga ku sawiranaynu maalin walba qosolkiisa layna tusayo inaynu ilmo naaska jaqay qosolkiisa dadka tusno oo aynu arrintaasi bedelo oo aynu yacni dumarkeenna hooyooyinkeenna walaalaheen iyo hablahaba aynu u sheegno inay naasnuujintu faa'iido leedahay arrintaasaa maanta laynooga fadhiyaa waxaan jecelahay inaanay xafladdanoo qura noqon ee ay noqoto barnaamijyo runtii maalin wal iyo habeen walba ka baxa tiifiyada iyo idaacadda sidii hooyada loogu dhiirigelin lahaa in ubadka la siiyo naasnuujinta faa'iido weyn bay leedahay halkana laga wada hadlay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين runtii iyadoo salaadiina ina hayso ambaba laga baxay salaadii waxaan runtii ku soo koobayaa hadalkayga horta salaanta iyo ducada iyo inaynu dhaahno intii ay adniinoo tiri hadday tahay xagga caafimaad hadday tahay xaggii shareecada hadday tahay xaggii yani waayo aragnimada inta waxaa noogu fileed doctor adna oo si fiican u sharaxday mowduuca aan isugu nimi oo ah wiigan loogu talagalay in lagu baraarujiyo ama maartay lagu soo xuso adduunka oo dhan faa'iidada ay leedahay naasnuujintu walaalayaal shareecadeena haddaan in yarun aayaddaa dib ugu noqdo sheekhi ardaygii inoogu akhriyey ama maarta saaxiibkeen inoogu akhriyey muxuu furitaankii xafladda ilaahay subxaana wa taala suuradda suuratulbaqara aayadda 230 wuxuu ku leeyahay walwaalidaatu يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلهي سبحانه وتعالى وحوت الماما يمركها إنه واجب تهي هو هذا واجب كتهي هو هذا وحا واجب كوا إن المهد إنه تجسو يعني هدي نوشين ويدا كل حرتان هذا الدبدي يوان سوكو بدونا مركو هراء وسيلك وسالة دينتي أوقافتا أقاسمها بود قدومية هيدا حرف ضياش بهداش عافماتك madaxda ka socota hay'adaha kala duwan aan mulanahay wada shaqeynta gacan saarka madaxda muxuu ahaa halkan fadhida ee kala duwan ee ka soo qayb gashay xuska toddobaadka naasnuujinta dhammaantiinba aad iyo aad baad mahadsantihiin waa idin salaameynaa sharaf bay noo tahay intii doctoradna ay tiri waxba laguma dari karo oo aad bay uga hadashay in naasnuujintu ay ilmaha nafaqadiisa iyo caafimaadkiisa iyo koriinka maskaxdiisa iyo jacaylka u dhaxeeya hooyada iyo ilmahaba inuu qayb ka qaadanayo waana qodobada ugu muhiimsan wasaaradda caafimaad ahaan waxaa nala taalla inaanu heer halkaa ka sarreeya aanu hawl ka galno oo ah siyaasad qaran ay noqoto in la horumariyo la xoojiyo naasnuujintu hawshaa waanu samaynay waxay ka mid tahay arrinta la xidhiidha adeega caafimaadka ee la siinayo hooyada dhallaanka siyaasad ahaan bay noogu jirtaa istiraatiijiyadaan u samayno u gaaro oonu ku howlgalno shuruuc baanu curinay ay ka mid tahay in la mamnuuco in waxyaabaha u dhigmaya naaska hooyada
muxuu la xayisiyo ama la iibgeeyo shuruuc kalena gacantaanu ku haynaa waxaan wada shaqayn leenahay wasaaradaha iyo hay-adaha iyo laamaha kale dowladda ee arrintaasi ay khusayso wasaaraddu shaqada ugu horeyso oo iyagu qayb ka ah in hooyada nuujinaysa ilmaha fasax waqti loo siiyay soo nuujiso waxaa ka mid ah inaanu dib u eegno manaahijta muxuu ahaa kuliyadaha caafimaadka iyo kuliyadaha kale ee soo saara takhasusaadka caafimaadka oo la eego inay qayb ka tahay in lagu tababaro shaqaalaha caafimaadku inay wacyigelinta iyo xirfadaha hooyada u baahan tahay ilmaha nuujintiisa uga baahan tahay iyo faa'iidooyinkeedaba ay manhajka ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah in wacyigelinta la joogteeyo oo ma aha un keliya toddobaadkan laakiin ay noqoto hawl ay qabtaan dhammaan howlwadeennada caafimaadka ka howlgala xarumaha hooyada dhallaanka oo hooyo walba la siiyo aqoonta u baahan tahay in hawsha ay ku wajahdo waxaa kale oo ka mid ah inaanu sameynay multisectoral collaboration ama wada shaqayn ay ka qayb yihiin qaybo kala duwan oo hay-adaha caalamiga ururada muxuu ahaa goobaha lagu tababaro shaqaalaha caafimaadka dhammaan in la isku yimaado si aynu arrintan oo waajib diini ah sida uu sheekh Albe inoo macneeyey inaynu waalidkii wacyigelinno qodobka labaadna xirfadaha hooyadu u baahan tahay in naasnuujinta aynu barno ta saddexaadna aan la dagaalanno dhaqan walba iyo badeecad walba oo keenaysa inay hooyada ka jeediso ama ay kaga mashquusho ama ay bedel u noqoto in muxuu ahaa ay ilmaheeda naaska nuujin weydo waxay naga go-an wasaaradda caafimaadku labada waaxood ee caafimaadka iyo nafaqada ay aada uga shaqaysaa oo labaduna ay isku xidhan yihiin maalmahan u dambeeyana waxaanu ku howlanaynoon in mar la qabto shirkii nafaqada hadda waxaanu ka soo baxnay shir kale oo isna muhiima dee caafimaadku ma kala maarmo meeshii la taabtaba waxa weeye qayb buu ka noqonayaa waxaa laga hadlayaa korriinka maskaxda waxaanu ka hadlaynay xanuunada ku dhacda garaadka cilmiyan ma garan kara laakiin waa macquul in ilmaha si fiican naaska hooyadii u nuugay uu ka badbaadi karo xanuuno badan ay ka mid yihiin xanuunada ku dhaca maskaxdu dhammaantood waa mahadsantihiin waxay naga go-aan inaynu qof walba oo aqoontiisa iyo awooddiisa iyo dhaqaalihiisa iyo talo uu ku darsado sidii aynu arrinta uga wada shaqayn yihiin waana noo xiran yahay barnaamijku